kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkii Hello Doctor. barnaamijkan oo ah kii saddexaad waxaan idinkugu soo gudbinaynaa cudurka ama cudurrada ku dhaca wadnaha. gaar ahaan waxaynu si gaar ah u eegi doonaa xanuunka la yiraahdo heart attack ama wadna qabad. muxuu yahay, maxaa keena, sidee looga hortagi karaa, daawadiisa iyo yaa u nugul. su'aalahaasi oo dhan waxay nooga jawaabayaa Dr. Abdullah Mansour oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo ka howlgala magaalada London. Dr. Abshir, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. waxaan jecelnahay qaybtan saddexaad ee barnaamijkeena Hello Doctor inaynu maanta kaga hadalno cudurrada gaar ahaan cudurka wadna qabadka. marka ugu horeysa cudurkan bal hadaad fasiraad kooban ka bixiso muxuu yahay cudurkan la yiraahdo heart attack. بوليد aad iyo aad ayaan u dhowahay waa mahadsan tahay maxaa la yiraahdaa sida la socotid wadnaha waa xubin yar oo maxaan ku dhahaa muruq ka samaysan oo ku tax taalo maxaan ku dhahaa saabka gudihiisa oo gaaraysa ugu yaraan 325 gram gaarayso waxa shaqadeeduna tahay inay dhiigga garaacdo oo ay gaarsiiso jirka oo dhan dhiigga soo wado oxygen iyo nutrition iyo cunto ama maxaan ku dhahaa sokor u gaarsiinaya jirka dhan marka waxayna shaqadeeda sida loo maleynaya ay bilowdaa dhaqaatiirta Canadianka ay ka dhawaajiyeen marka cunuga 3 bilood caloosha hooyadiis ka samaysan yahay ayay bilaabataa xubintan dhiigga inay jirka dhan gaarsiiso ayaa mararka qaarkood saa sheegtay cudur u imaan karo gaar ahaan marka maanta waxaan dhex galaynaa muxuu yahay heart attack marka oo heart attack waxaa laga wadaa marka wadnaha qayb ka mid ah oo xididdo ayuu leeyahay isaga laftirkiisa ayaa dhiig isiiya oo dhiiggaas oxygen iyo nutrition u wada xididadaas ka mid ayaa waxaa dhici karta inay xirmaan ama xinjiraha xirto ama waxa xiro in oo marka shaqadii hal mar uu waday oo maxaan ku dhahaa ay slow noqoto xanuunna uu qofkii dareemo ayaa waxaa lagu magacaabi karaa heart attack ama qabsiimin wadnaha ayaa qofka laga qabtay ayaa la dhihi karaa saa la socotid wadnaha wuxuu garaacaa 5 litir dhiig oo qofka bini'aadamka ku jiro 5 litir maalintii 9,000 litir oo kale ayuu garaacayaa oo jirka dhan gaarsiinaya marka qabashadaas oo la qabanaya ama qayb ka mid ah ay weynayso oxygen iyo nutrition ayaa waxaan ku magacaabi karnaa heart attack ku magacaabi karnaa waa tahay Dr. Abshir aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaad inoo sharaxday wadnaha iyo waxa uu ka qabto jirka bini'aadamka iyo ahmiyadda uu leeyahay su'aashida labaad waxay tahay muxuu yahay marka heart attack muxuu yahay waa maxay calaamadihiisu heart attack waxaan ku magacaabi karnaa marka qayb ka mid ah wadnaha ay qayb ka mid ah oo gaari waaya ama oxygentii ama nutritionkii ay ka xiranto ayaa waxaa imaado wax la dhaho heart attack imaado ama xanuunka wadnaha uu imaan karaa xididadii oo dhiigga siinayay mid ka mid ah ama qaar ka mid ah ay maxaan kaga joojiyaan sababo jiraan dartooda ayaa markaasa waxaan ku magacaabi heart attack calaamadaha marka lagu garan karo mawlidu way kala duwan yihiin dadka qaar si fudud ayuu macnaha ku qabanaa oo aan la fahmaynin waxaa lagu qaldayaa gastric oo kale lagu qaldaa qaar ka mid ah kuwaasaan soo hormarinaya because mararka qaarkood qofku gastric u malaynayo bogga ayaa soo xanuunaya uu lablaboonaya calaamado kale oo aad u weyn lama socdaan kaasaa marka ku qaldi kara laakiin kan klassikada caadiga ah oo mar walba la ogaanayo oo calaamada oo rasmiga ah markuu qofka uu sheeganayo aad inaad ka shakisid loo baahan inuu heart attack hayo ama wadna xanuun hayo waxa waaye chest pain xanuun oo maxaan ku dhahaa oo xabadka ah ayaa xanuunaya mararka qaarkood waxay ku dhahayaan sidii in barmiil la ii saaray oo kale ama wax oo culus in la iga saaray oo kale ayaan dareemayaa waxaana ku xirmaya mararka qaarkood neefta ayaa cariiri ku noqonayso kulee neeftiin inaan qaadan la'ahay oo kale ayaan dareemayaa wuxuu dareemayaa xoogaa madax light headed ayuu dareemayaa madax xoogaa khafiif noqonaya ama dizzy ayuu noqonayaa mararka qaarkood wuu dhici karaa collapsed dhulkuu ku dhici karaa fainteed uu noqon karaa marka wuxuu xanuunku u gudbayaa
dhinaca oo gacanta bidix ayuu aadayaa wadnaha dhinaca bidix xoogaa u janjeeraa dhinaca bidix uu aadi karaa ilaa ay qoortu aadi karaa ilaa ay maxaan ku dhaha dhinacan ayuu qabsan karaa calaamadahaas marka laisu geeyo oo uu ku dhaho waxaan dareemaa discomfort maxaan ku dhahaa wadna sambabkii ama xabadka ayaan ka dareemaa sida cariiri aan ka dareemaa chest pain lalabaa qaban karto wuu matagi karaa all these things markii ay qofka qabtaan tabardaro u imaato madaxii uu dizziness ama noqdo ama qaar ka mid ah wayba dhacaya dhulku dhacaya oo fainted noqonaya markaa aragtid inaad ka shakisid waaye in heart attack uu jiro ama wadnaha qabad inuu jiro oo markaasiti aad la tacaashid oo sidii ugu dhaqso badan heart attack aad u daaweysid waaye waa gartay victoria marka maxaa sababa marka la leeyahay qofkaas waxaa ku dhacay cudurkii ma waxaa jira waxyaalo sabab u ah oo keena cudurkan wadna qabadka ها waxyaabaha ugu badan horta oo keeni karo waxa ugu badan koronaariyaashu xididada ma aragtay oo dhiigga siiyo wadnaha ayaa hadda sida aad taqaanid waxa aad u batay cholesterol baa la dhahan dufan ayaa aad u batay dufankaasoo wuxuu mararka qaarkood xiri karaa jidkii ama xididadii wadnaha laftirkiisa siinaya dhiigga ama nutritionka siinaya ayuu xiri karaa markuu cariiri ayuu ku marayaa dhiiggii sidii loogu talagalay tubo soo xirinta oo kale ayuu noqonayaa midda kale xinjir ayaa samaysmi karto oo kasoo baxday ama lugta ama meel kale oo imaan karto sida stroke oo u keento oo kale ayay wadnaha xiri kartaa ama meeshaas oo tubada oo xirantay cholesterolka ah ayaa waxaa maxaan ku dhahaa xinjir kusii samaysmi karto marka jidkii xirmaayo wax alla wixii oo dhiiggii meeshii helayay intii hooseyso dhan dhiig ma helayso xanuun marka meeshaasuu ka imaanaa qayb ka mid ah wadnaha ayaana helaynin dhiig iyo nutrition aan helaynin kaas ayaa dhibaatada ee ugu badan ee keenaysa coronarobati coronariyaasha ama xididada ayaa keenaya waxaana aad ugu sahlan dadka sigaarka caba dadka kolesteroolkooda haa yahay dadka miisaankooda oo aad u badan yahay culeyska tirada badan dadkaan exerciseka samaynin qaar ka mid ah genetica waaye oo dhaxaltooyo waaye waalidkooda ayaa macnaha qabay ayaga marka way u jilicsan yihiin laakiin way ka hortegi karaan dadka qaba sokorta qaba oo ayagana aaday hala sugu yihiin maadaama kolesteroolkooda wuxooda kaco uu ku badan yahay waxaa jiro dadka lifestyleka oo aan exercise ama dhaqdhaqaaq aan samaynin ayaga laftirkooda dhibaato ayaa u imaan karta wuxuuna aad ugu badan yahay mawlido maxaa la yidhahdaa ragga ayuu aad ugu badan yahay marka loo eego haweenka iyo ragga waa gartay doctor aad baad u mahadsan tahay marka waan garanay sharaxaadaas wanaagsan ee qiimaha leh cilmiga wadata marka laga soo gudbo marka sidee marka go'aan looga gaaraa waxaan inay yihiin heart attack inay yihiin iyo in kale sidee lagu ogaadaa marka صح سؤال aad muhiim u ah ayaa weydiisay waxa lagu ogaadaa qofka horta waa in sida ugu dhaqso badan lala cararaa oo la geeyaa maxaan ku dhahaa isbitaalkii la geeyaa isbitaalka ayaa ogaanaya inuu heart attack yahay dhaqaatiirta ogaanayso waxaynu ku ogaanayaan waxay saarayaan wax la dhaho ECG electrocardiogram wax la dhaho ayay saarayaan dan waxay ka qaadayaan dhiiggaasoo laga fiirinaya dheecaan ka soo baxay marka derbigii uu dhaawac gaaray troponin dhacaan la dhahaya ayaa dhiigga kusoo badanaya dheecaankaasna si tartiib ugu soo badanaa especially 12 saac oo kale marka kasoo wata aad u badanaya waxaa kaloo jiro markii la ogaado ama ECG-ga ay sheegaan ama troponinta ay sheegaan waxaa markaas la sameeyaa angiogram wax la dhahayo waa la sawirayaa contrast lagu shubaa waxaa la sawiraa xididada oo wadnaha laftirkooda ayaa la sawiraa waxaa la arkayaa meesha xirantay ama meesha xinjir fadhiisatay ama meesha dufan intay fadhiisatay oo aan dhiigga gudbinaynin ayaa la arkayaa saas ayaa marka go'aan lagu gaaraya diagnosis oo la dhahayaa wuxuu ahaa heart attack ayuu ahaa waxa qofkan ku dhacay waa gartay doctora marka cudurkii waa la sheegay qofkii waa lagu ogaaday ka hortag baa la sameeyey daawo ma leeyahay marka maxay tahay daawadiisu marka ugu horeysa markii la ogaado waxyaabaha ugu horeysa ee la siiya aspirin waaye aspirin saa u taqaanid xinjirta si uu u burburiyo ama khafiif uga dhigo ama xinjirta ay weynaanin ayaa aspirina lagu bilaabaa iyo waxyaaba oo heparin clopidogrel wax la dhahayo daawooyin oo meeshii jidka inay furaan loogu talagalay ayaa la siinayaa
kadib haddii waxay ku xiran tahay xididka xirma inta ay la eg tahay waxay ku xiran tahay qofka intuu la egyahay qof weyn miya ama qof yara ayay ku xiran tahay marka waxyaabaha oo la sameeya waxaa ka mid ah stent wax la dhahaya ayaa la dhigaa tubadii dhexdeeda ayaa shabaq la dhigaya waxaa la geynayaa qol gaar ah qolkaasoo looga sameynaya xididka oo hoos lugta ah ayaa laga soo gelinaya wire ilaa la tago maxaan ku dhaha wadnaha meeshaasoo ayaa iyadoo la sameeyo angiogramka ayaa marka waxaa la dhex dhigayaa stenta ayaa la dhex dhigaya dadka qaar ka mid ah oo dhalinyarta ah haddii maxaan ku dhahaa maadaama stenta waxaa la dhigaa oo loo sheegaa xididka marka la furo intaan stenta la dhigin qof yaraa tahay marka waxaan soo qaadaynaa xidid ka mid ah lugahaaga xididada oo veenayaasha oo dhiigga soo celiya ayaan soo baxsanaynaa booskii oo xididkii xirmay aan gelinaynaa ayay dhahayaan si oo kuugu shaqeeyo jirkaagu ka mid yahay mana soo tuuraysid rijadta ma samaynaysid muddo badanna waad ku moolaysaa maadaama qof yar aad tahay laakiin hadduu qofka qof weyn yahay shabaqaas oo stentaha la dhahayo loogu talagala ayaa la dhex dhigayaa kadib jidkiyaa furmaya waxaana la siinayaa wax xinjiroobidda ka hor imaada dhiig inuusan xinjiroobin ama warfarin wax la dhaho daawooyin ayaa la siiyaa oo dhiigga khafiif ka dhigayo haddii su-aal ayaa meeshan kasoo baxayso kasoo qaad haddii qofka asbrin allergic u yahay maxaa la sameynaa lama siinayo allergy waa taqaan shooguu sii galaa wuu kaa dhiman karaa qofka looma dhoweynayo haddii qofka allergy uu ku yahay marka waxaa jiro kaniinyaal kale oo sida clopidogrel mid la dhaho ama heparin wax la dhaho kuwo kale ayaa la isticmaalaya oo la siinaya markii uu qofka isbitaalka kasoo baxo oo macnaha stenta loo soo geliyo stenta waa wax aad u fududa kan oo xididka ayaa shaqo badan u baahan marka loo bedela qof dhalinyaro ah hadhow marka isbitaalka kasoo baxaan waxaa lasoo siinayaa kaniiniyaal oo ilaaliya la siinaa check upna waa loo sameynaa mar walba loo sameynayaa waa inay isbitaalka dib ugu soo noqdaan oo la fiiriyo haddii wax kale xirmeen haddii wax kale ay socdaan waa gartay doctor arrinta aspirinka dad waxaa jira iska qaata iyadoo aan loogu qorin iyadoo aan loogu talagelin oo leh waxaan rabaa dhiiggayga inuu furan yahay marka dadka caynkaasa ma ku saxan yihiin mise waa ku qaldan yihiin oo waa arrin fiican ma aha hadda waxyaabaha update-ka ah oo maxana oo soo baxo oo ay soo qoraan dhakhaatiirta soo qoraan oo dadka lagu update gareeyo indicated maaha ama lama siin karo macnaha aspirin iska qaada ma wanaagsana aspirinka la qaadanayo oo tirada badan dame dhibaato kaluu keeni karaa haddii aan lagu qorin dhakhtar kuu qorin aspirinna badanaa waxaa la siiyaa dadka wadnaha mushaakil qabaan ayaa indicated u yahay ama macnaha la siin karaa oo ay qaadan karaan waxaan arkay dad iska qaadanayo iska badiyey oo xinjiroobidii dhiigga ka halaabay ama dhibaato ay gaarsiiyeen waa taqaanaa daawo kasta side effect ayay leedahay dhibaatada ay keenaysaa marka saas darteeda ayay dhakhaatiirta go-aan u gaareen ay dhaheen yaan laiska qaadanin waa in maxaa ku dhahaa dhakhtar kuu qoraa dhakhtarkana wuxuu fiirinaya in wadnaha problem uu ka jira ayuu kuu siinaya iska qaada maaha waa gartay marka doctor haddii qofkii uu ka badbaaday intuu ku dhacay wadna qabadkii maxay yihiin marka wax dib ka yimaada ma waxaa jira complication ama waxyaalo kale oo qofka saameyn ku yeesha mustaqbalkiisa dambe haddii ay jiraan maxay yihiin mararka qaarkood haddii aanay for example aan sidii la rabin loo daaweynin ama aana laga hortegin waxaa imaan karo complication dhibaatooyin kale dhibaatooyinkaas kale waxaa ka mid ah arrest cardiac waa wadnahaba istaagi karo sababtoo ah wadnihii qayb ka mid ah ayaa dhiig la-aan ku dhacday damage dhibaataa gaartay marka waxaa kaloo imaan kara arrhythmia wax la dhaho oo rhythmka wadnaha wuxuu wataa electricity asaga u gaar wataa haddii lasoo bixiyo weli wuu garaacaa taas waxay sheegaysaa in koronto keligiisa uu wato ay jiraan korontadaas ee rhythmiga ay tahay macnaha si habaysan ay ku wado wadnaha kuwaas ayaa waxa ku dhacaya arrhythmia wax la dhaho isdhaafdhaaf ayaa ku dhacaya kaasoo keeni kara isdhaafdhaafkaas ama wadna garaaca isdhaafdhaafa waxay keeni karaan inuu dhaco maxaan ku dhaha xinjiroobid kala samaysanto inuu maxaan ku dhahaa wadnihii laftirkiisa uu istaago arrest cardiac ayaa lagu magacaabaya marka complication noocaas ah ayaa ama waxaa imaan karta hadduu daalana heart failure oo wadnihii
sidii loogu talagalay ma ahaanayo hadda kabacdi marka heart failure waa taqaanaa markuusan awoodba u lahayn inuu garaaco dhiig ku filan jirka uusan garaacin oo daawo laga daba wado ayaa imaan karta waa gartay marka waa gartay qofkan waa qof fiican waxa ma qabo sidee buu u dadaali karaa ama waa qof ugu jira khatar oo wuxuu ku jira group kale yiraahdo halis bay ugu jiraan inuu cudurkaas ku dhaco marka maxaa looga hortegi karaa marka doctor waa su'aal aad u wanaagsan oo muhiimad weyn leh horta waxa la wixii oo haddii genetically oo family aad u leedahay in wadna xanuun aad og tahay in waalidkaa walaalahaa ama eheladii ama hooyo ama ay wadna xanuun iyo problemkaas ay qabaan waxaa ku ran ina mar walba check up horta in iska samaysid aad iskontaroolshid cholesterolkaaga meequu maraya aad iska ogaatid haddii diabetic aad tahay control dowladaba u samaysida UK oo kale meelo badan way sameeyaan inaad samaysid control samaysid haddii miisaankaaga culeys uu jiro miisaanka inaad dhintid haddii aad smoker aad sigaar cabtid sigaarka inaad joojisid xiriir toosuu la leeyahay oo heart attack ama dhibaato keenaa sigaarka isagana in la joojiyo midda kalena lifestyle-ka ama nolosha sida adiga cuntada raashinka cunaysid dietkaaga waxaaga waa inay hagaagsanaadaan oo aan ahayn carbohydrate kaliya laisku daldalaya laakiin waa in aad different cunno ah oo wanaagsan cuntaa midda kale dhaqdhaqaaq ayaa loo baahan yahay exercise inaad macnaha aad nus saac oo kale haddii aad helaysid inaad socotid ayaa wanaagsan ama dhaqdhaqaaq aad samaysid ninkii gym heli karaan gym inuu tago oo exercise kusoo sameeyo inuu is ilaaliyo ayaa aad u wanaagsan marka wax alla wixii keeni kara oo dhibaato ah midda kale mawlid oo aad very important ah wadanka ama Soomaalideena waxay yaqaanaan bari idaada qofkan lagu soo daaweeyay iyo subag iyo waxyaabahaas waa kuwa keena oo dhaqsi aan ku dhahayay mailka nimanka ayaa ku badan cudurkan aan ku dhahayay oo dhaqsina u dhintaan waxyaabahaas ayaa keenaya midda kale kaniiniyo waxaa jira oo hadda soo baxay oo awoodda ragga oo kor u qaadaan iyaga laftirkooda marka la isticmaalayo laftirkooda dhibaatay keeni karaan oo mashaakilaad ay keeni karaan kuwaas laftirkooda in laga taxadaro waaye hadda waxaan maqlay dad badan ayaa u dhinta the side effect of kaniiniyaashaas ayagana saasoo kale marka waa in waxyaabaha oo dhibka dhan keeni lahaa in laga fogaado ayaa ila wanaagsan waa garta doctor ugu dambeyntii adigoo aad iyo aad u mahadsan marka ay timaado marka jimicsigaa tiri qofka marka bini aadamka ah ka soo qaad dadka shaqadooda fadhiga ay tahay ama bas wada ama taxi wada ama xafiis fadhiya ama meel kale ganacsi ku haysto dukaan meel ku haysto oo ay yar tahay shaqadooda yar tahay ama qof ka shaqeeyo kale receptionka hoteelada iyo maqaayadaha meeqa ku fil marka qofkaas loo baahan yahay inuu socdo maalintii nus saac ayaa wanaagsan qofka nus saac hadduu heli karo inuu socdo qasab maaha inaad xataa aad banaankaas aadid meesha aad joogtid laftirkeeda waad ku socon kartaa dhaqdhaqaaq wanaagsan inaad haysatid ayaa wanaagsan midda kale raashinka aad cunaysid carbohydrate-ka iyo energy aad helaysid iyo in dhaqdhaqaaqa iyo gubitaanka ay islahaadaan ayaa wanaagsan si aadan obese u noqon ama miisaan uusan kuu korin waa gartay dr abshir cabdalla mansuur aad iyo aad baad u mahadsan tahay daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa qaybtii saddexaad ee barnaamijka hallow doctor oo aynu kusoo qaadanay cudurrada wadnaha gaar ahaan heart attack ama wadna qabad qaybo kale oo ka mid ah barnaamijyada hallow doctor ayaad la socon doontaan toddobaadyada soo socda dhakhtarkuna waa mahadsan yahay adinkuna daawadayaal waad mahadsantihiin